gabadhan Soomaalida u jeedaan ninka cadaanka baayada darteed wuxuu ugu shakeeyay dartaaba uu soo muslimaya ka bacdina uu qiyaana muddo laba caruur isku dhaleen uu guursaday ayaa darteed diinta islaamka soo galay beenbeenay asaga waxay ka aad qiyaana kulwad ka bacdina markuu diinta islaamka soo galay muddo ka bacdi wuxuu sheegay inuu gaal yahay oo diin islaamka kristaan midna haysan shaydaanka uu caabudo dadka cawaanta iyo shaydaanka caabudo hadda ayadii waxay soo fariisatay TikTok YouTube ka ayado qaylinaysa oo xaaladda ila kulanta ka sheekeynaysa oo ku dhaas faarax Soomaali wax dhaama lawaa dadka ajnabiga gabdhaha guursanaysiin attention-kooda ma ogeedeen intention-kooda warkimeysiin maxay dimacsiin maxay ku rabaan yani qiyaano badan ku jirta kale waatana السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي إذا قيبت تيك توك إن مقعي وعائشة أنت إتقانو أو يوتيوب ليه بقى هاي أنت يوتيوب إيقو تقانو هي أنت تيك توك إيقو تقانو وحمات إيقو عد صنايا هذا إتقاني دي هذا دي أقوني سومالوين والأم حق عد صنايا إنا إيقو سودعيان لبا عرور أو عندلي أو عدان ومحل ده هاي أبوهد أنكلا تقني مر الله لمركا كلا تقنينا يري أنا قدينتو وان كبحي دينت هادو كبحينا waxaa ii fiicnaan lahayd asagoo xitaa diinta kirishtaanka qaato wuxuu qaatay diinta cawaanta oo ah inuu aaminsan yahay inaysan ilaahay jirin waxyaabo aniga iga dhaadhicin jiro baa jirto intaas qabnay isla joognay oo weli sanadkii u dambeeyay uu maxaa la dhahaa toole idhihi jiray caashi ka war haddaan saan nahay ka war haddaan dhimana markaasaan maxaa la dhahaa haddaan saan noqonayno haddee ka waran ilaahay jirin haddee ka waran waxaas jirin haddii arabtid inaad maxaa la faahfaahin dheeraada fiirsatid youtube-kaygan kuusoo saaraya halkaas ka daawo laakiin waa igu wallaahi waana igu billaahi waana igu tallaahi inaysan waxaan views iga ahaan ina maxaa la naf u yaabay oo maxaa la dhahaa anuu og ina igu diganaysaan ina isoo caayaysaan ina waxaa doonta sheegaysaan faarax badan oo banaankaas joogo xarsh ii haayo oo markaan ninkan soo islaaminaya masaajidka aan geenaayay aan ku dhaha ani iyo faarax waa isdaynay aan ku jeesteenaayay waxyaabo badan aan soo sameynayay dadkaas oo dhan inay banaankaas igu sugaayeen oo isugaayeen waa ogahay inay igu soo diganayaan oo xitaa shalay qolal iga soo furto meeshaas liigu caayayo la dhahaayay saan waay kan waay marka hore ayada guursatay kan waay wax alaalo waxa doontiin idhaha laakiin ii soo duceeyo laakiin ilmahaas igu soo duceeyo taxagartama ilmeyga halisa ku jiraan 3 maalin asaga haysto 4 maalin ana ila joogan ilmahaas ay toole inuusan ka dhaadhicinin inaysa waxaas ka yeelin wuu ka dhaadhicinaya ilmaha hadda waxay kala jiraan 4 sano iyo 3 sano marka waxaan ka codsanayaa inaad maxaa dhahay ducada igu soo kabtaan oo insha Allah taala anigu iga qaadi waay wax uu iga qaadi waay uu ibedeli waay mar alaal markuu arkay inuu ibedeli waay inuu ku kala tagnay soo xagaratay ma aha waa waxay diinta islaamka u diidaysanaa inay qof dumar inay guursato nin gaal ah gaal ma ahayn marqaatiya ka wada tihiin tiktok-geegaan ku jiraan ninka asagoo ashhaadanayo 5 sano 4 sano ka hor ay soo galiyay hatta hadda dib u raacda tiktok-geega waa ku arkaysaan aniga qof muslim oo ii aha qof islaam oo ii aha qof gacanta intaan qabta taraawix geenayo ii aha qof oo maxaa la dhahaa toole oo jimco kasta masaajidka aadan oo ii aha waxa iga marqaati dadka magaalada la deganahay Michigan marka gabdhaha banaankaas joogo oo isla ninka cadaanku qurux badan yahay ana kamid ahaa qurux loo waay ilmo qurxana dhalay ilmo indha blue ka dhalay baqba ku waxa u jeeday celebration dhiganayo oo xaflada dhiganayo maadaama indha blue laga dhalay laakiin waxaan weydin wada sugaysaa farax luga baast wax dhaama la waa wax dhaama farax luga baast la waa farax luga baasta badan xarshu ii haaya anigu igu soo raaxaysana luga baasta aabiya luga baasta walaalkiya luga baasta meel looga baalkeenay ma jirto wax noo dhaama ma lahan 3 luga baasta u dhalay way jirtaa cid igu haysata jirmaanta waxaan rabaa aan la sameeynaa meeshan doon u wadanaay labada laakiin wuxuu yiri Afrika daa aadaysid ma iga wadi kartid hadaa wadanaysidna bil 2 bilood ka badan ma soo joogi kartid maanta daan diina xitaa soo barsiisana Afrika u wadanaa ma u wadan kari ma guuri kari ma la guuri kari marka ka fikir bari أنا وكلها نقني بري كفكر وحياة بدنا عايزين سوقلين دونا إن شاء الله تعالى لكن هدر والله وبالله وطلع السداع هذا وحين قعد سنة إن الله بدنا سعنك يجوا سود عيسى المهيجة كلو حن كبرا إن أونلاين كبرتان قرانك إن وأود جاية وبري دونا إن شاء الله تعالى مركح وجا سوير جارن إلى الحسنة ولا برا قرانك وبري دونا دين تسلانك وحيته وأشياء دونا جمعة كاستمساجد كواجين دونا وأول بسي دونا عمامة يوحول وبري دونا ويلي كبرا أندلي إن هل كان إذا سو سارايا يسودعي والله دا عادي يسودعي هاي قلت جنينة وحبيجي مقال هذا يسوع عيسانات سوشيال ميديا كجرت آي وابرته وحسيته له هذا ما تصفرتان واحد دون تيشكتان I know لكن يسوع دعي واحد دون تانو قال إلها لكن يسوع دعي
laakiin labadaas ilmood oo saqiirka u soo duceeyay anigana ii soo sheegay aakhira mal ii haystaa waa ogaa ninkan inuu aniga darteyda uu islaamay jacayl ani uu ii qaba darteeduna uu islaamay oo jacayl islaan u qabo uusan u islaamay kuwa badan oo banaankaas jooga idin sugaysaa ee ka digtoonaada saan ogaada Soomaali hore ugu maamaaday nin dal lama daalo soo gabdho iska ilaalay dadka ajnabiga hadda doontiin guursada laakiin ajnabiga bahad dilan oo diinta aan haysan oo cawaanta iska ilaaliya kulli ma ogid qofka wuxuu dimacsan yahay wuxuu ka dibacsan yahay qiyaanadiisa calooshiisa wuxuu ku jira qalbigiisa wuxuu ku jira ma ogid laakiin hadda maanta laba caruur oo dhashay caruurteeda Mareykanka ma soo kaxaysan karto nin shaydaanka caawiyo caruurta u dhashay hadduu ogaado in airportka lagu qabanaya lama soo tegi karto lama soo dhuuman karto hadduu doono caruurtii asaga badan haysta diintaas oo shaydaanka la caabudo iyo caruurtii baraya asxaabta YouTube-ka waa kana YouTube-kayga subscribe saara awal asxaab TikTok la socon jirtay xagaan barnaamijyada badan aad soo dhigay insha Allah sidoo kale Facebook follow soo dhaaf